السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. مقعيقو ومولد حاج عبدي برنامجك ورarka maanta qodobada aan idinkugu hayno waxaa kamid ah ugu yaraan 10 Israa'iiliin ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ka soo gaaray weerar loo adeegsaday toorey iyo baabuur oo ka dhacay daanta galbeed ee la haysto qof Falastiini ah oo weerarkan ka dambeeyay ayaa ciidamada Israa'iil ay toogteen waxaan idin soo gudbinaynaa wararkii ugu dambeeyay ee amuurtan dalka Yemen kooxaha STC ee koonfurta Yemen ee Imaaraadka oo taageero ayaa ku eedeeyay Sacuudiga in duqeymo maanta uu ka geystay gobolka Xadrimood deegaanna ay ku sugan yihiin iyadoo dagaalo ba'anna ay socdaan qabaa'ilka Xadrimowiyiinta ee taageersan dawladda caalamku aqoonsan yahay iyo ciidamada STC ee goonigosadka ayaa dagaalamaya dalka Suuriya qarax dhimasho iyo dhaawac sababay ayaa ka dhacay masaajid ku yaal magaalada Xumus ee dalkaasi iyadoo lagu soo waramayo in qarax uu dhacay xilli lagu jiray salaadii Jimcaha Israa'iil waxay sii wadaa weerarada ay ka wado dhanka Lubnaan sirdoonka Israa'iil ayaa qirtay inay ku guuldareysteen inay dhex galaan hoggaanka Xamaas oo ay ka qortaan jawaasiis la shaqeysa arrintan waxaa lagu sheegay inay sababtay guuldarrada iyo fashilka dhanka sirdoonka iyo ciidan ee Israa'iil soo gaaray 7 Oktoobar wararka kale waxaa kamid ah Pakistan iyo Shiinaha ayaa samaysanaya iskaashi military oo xooggan walaac weyn ayaa ka haysta Hindiya sidoo kale Mareykanka ayaa ka walaacsan qorshaha ilaa iyo 40 diyuuradaha dagaalka ee casriga ah ee J-35 Shiinuhu ku siinayo Pakistan dhammaan wararkan iyo waliba kuwa kale oo faahfaahsan ayaan idinkugu soo gudbinaynaa barnaamijka wararka maanta soo gudbinta barnaamijkan waxaa gacan ka geysatay shirkadda dhismaha guryaha casriga ee Qibla Homes ugu tag guryo casri ah iyo qiimo ku raali geliya waxaan dhammaanba bulshada lala socotiinaya in shirkadda caalamiga ah dhinaca dhismaha guryaha lagu magacaabo Qibla Homes Limited ee fadhigeeda magaalada Nairobi ee dalka Kenya ay kugu tala gashay dhismayaal dhaadheer oo qolal kala duwan ay ku yaalaan oo kala baaxada iyadoo waliba 150 maalmood oo soo socota oo 5 bilood loogu tala galay qiimo dhimis dadka macaamiisha inay ka faa'iideystaan la xiriira maamulka sare culimada isu tagtay ragga ee rabbi kaashaday si gaaran ula xiriira Shayliibaan Cali iyadoo telefoonadana shaashada arkaadkayseen